Afghanistan magaceeda rasmiga ah waa Jamhuuriyadda Islaamka ee Afghanistan. Waddankani oo ah buuraley wax badna aanan lahayn waxa uu ku yaalaa goob istiraatiijig ah oo isku xirta bariga iyo bartamaha Aasiya iyo weliba nusqaaradda Hindiya. Waxa ayna xuduud la leedahay wadamada kala ah Iiraan, Bakistaan, Tajikistaan, Turkmanistan iyo Uzbekistan. Sidoo kale waddankan Afghanistan waxa uu xuduud aanan sidaasi usii dheereen la leeyahay ismaamul goboleedka ka tirsan dhulweynaha Shiinaha ee la yiraahdo Xinjiang. Waddanka oo wax yar ka yar gobolka Texas ee dalkaasi Mareykanka ayaa ku fadhiyo masaafo dhan 652,000 oo kiiloomitir oo square ah. Dadka reer Afghanistan waa dad muslimiin ah boqolkiiba 99. Dalkana diinta kaliya ee laga ogol yahay waa diinta Islaamka. Tirada dadka ku nool Afghanistan ayaa sanadii 2015 waxaa lagu qiyaasay 26.5 milyan oo qof. Caasimadda waddanka waa Kabul, halka luqadaha dalkaasi looga hadlana ay kala yihiin luqadaha Dari iyo Pashto. Buurta ugu dheer dalkaasi waxaa la yiraahdaa Noshad, dhererkeeduna waxa uu gaarayaa 7,485 mitir. Soo dhawow daawade, haddii aad ka heshay muuqaalkan fadlan like saar si aynu u soo badino. Mahadsanid. Afghanistan waa waddan ku wanaagsan qidada dagaalka, waxayna taariikhdiisa u laabanaysaa ilaa 500 oo sano ka hor dhalashadii Nabi Ciise calayhi salaatu wassalaam. Markaasi oo dadkii deganaa dhulkaasi ay weerar ku soo qaadeen ciidamo reer Greek ah oo uu hogaaminayay dagaalyaankii reer Greek Alexander the Great, isagoo xukumayay halkaasi ilaa laga soo gaaro qarnigii 3. Intii u dhaxaysay qarnigii 7 ilaa qarnigii 10 ayuu Islaamka soo gaaray Afghanistan kadib markii dagaalyahanadii muslimiinta ay furteen dhulkaasi. Duufaantii duuleysay ee Mongooliyiinta ee uu hogaaminayay Genghis Khan ayaa Afghanistan ku dhufatay qarnigii 13, markaasi oo uu maamulka dalkaasi qayb ka mid ah gacanta ku dhigay hogaamiyihii Mongooliyiinta ee Genghis Khan, halka intii soo hartayna ay ku hardamayeen boqorradii ka kala talin jiray wadamada Hindiya iyo Persia oo hadda la yiraahdo Iiraan. Ciidamo fara badan oo ka soo jeeda beelaha dega waddankaasi oo uu hogaaminayay dagaalyaankii caanka ahaa Axmed Shah Cabdalli oo loo yaqaano Durrani ayaa ku guuleystay inay iska dulqaadaan heeryadii gumaystihii Mongooliyiinta iyo sidoo kaleeta Iiraaniyiinta. Waddanka Afghanistan waxaa gumaystay Ingiriiskii, waxa ayna gumaystaha Ingiriiska xornimadooda ka qaateen 19 Agoosto 1919. Sanadyadii u dambeysay Afghanistan waxa ay daris la noqotay dagaallo ahli ah kuwaasi oo ragaadiyay dhammaan kaabayaashii dhaqaalaha ee uu dalkaasi lahaa. 1979 waxaa dalkaasi kusoo duulay Midowgii Sofiyeeti oo xukumayay tan iyo intii laga soo gaarayay 1989, markaasi oo ay ka itaal roonaadeen maleeshiyaad Islaami ah oo ay soo baratakaarayeen wadamo ay ka mid yihiin Mareykanka, Sacuudi Carabiya iyo Bakistaan. Maleeshiyaadkaasi waxaa ka mid ahaa rag fara badan oo ka kala yimid wadamo muslimiin u badan oo xitaa ay Soomaaliya ku jirto, waxaana ka mid ahaa hogaamiyihii ururka Al-Qaacida Osama. Bixitaankii Midowgii Sofiyeeti waxa ay dalkaasi u horseeday inuu gacanta u galo maleeshiyaad ku hardamayay xukunka dalkaasi, waxaana ka mid ahaa kooxdii Taliban oo maalgelin fara badan ka heli jirtay wadamo shisheeye. Dhaqaale fara badan oo Taliban ay heshay kadib ayaa waxa ay ku guuleysteen in maamulka dalkaasi intiisa badan ay gacanta ku dhigaan, waxa ayna xukumayeen tan iyo intii laga soo gaarayay markii Mareykanka iyo xulafadii isaga uu hogaaminayay ay kusoo duuleen dalkaasi sanadii 2001. Mareykanka ayaa Taliban ku eedeeyay inay gabaad siinayeen hogaamiyihii Al-Qaacida ee lagu tuhunsanaa inuu ka dambeeyay weerarkii daarihii mataanaha ahaa ee dalkaasi Mareykanka. Weerarkaasi oo dhacay 2001. Dagaal culus oo ay Taliban la gashay Mareykanka iyo maleeshiyaad maxalli ah oo socday muddo bilooyin ah ayaa waxa uu sababay in Taliban laga awood roonaado, taladana sidaasi looga tuuray iyagoo lagu riixay dhulkii buuraleyda ahaa oo ilaa maanta ay ka dagaalamayaan. Kadib markii talada laga tuuray Taliban, qabqablayaashii dagaalka ee dalkaasi ayaa lagu shiriyay magaalada Bonn ee dalka Jarmalka si ay uga tashtaan aayaha dalkooda.
ayagoo markii dambena ku tashtay in la dhiso dowlad ku meel gaar ah oo uu leeyahay waddanka Afghanistan. Sanadii 2002 ayay jabhadahaasi dhiseen baarlamaan ku meel gaar ah oo kulminayay dhammaan hogaamiyaashii maleeshiyaadka ee dalkaasi ka talinayay. Doorasho lagu qabtay gudaha baarlamaankaasi ayaa lagu soo doortay Hamid Karzai oo ka mid ahaa qabqablayaashii dagaalka ee dalkaasi, isagoo noqday hogaamiye ku meel gaar ah oo uu yeelanayo dalkaasi. Karzai waxaa la siiyey muddo 18 bilood ah oo uu ku bedelo dastuurka dalkaasi, sidoo kalena 24 bilood oo kale oo uu ku qabto doorasho ka dhacda dalkaasi. Tan iyo maalinkaasi, walow Afghanistan aysan helin nabadgelyo waarta, haddana waxa ay leedahay dowlad shaqaysa oo uu taageero caalamka. Waxyaabaha caanka uu ku yahay waddankaasi Afghanistan ayaa waxaa ka mid ah wax soo saarka dhanka beeraha iyo sidoo kaleeta macdano qaali ah. Daawadayaal, intaasi waxaanu ku soo koobaynaa taariikhdii aynu uga hadlaynay waddanka Afghanistan oo ay ragaadiyeen dagaallo sokeeye oo tan iyo maanta laga dareemayo saameyntii ay ku yeesheen. Tani intaynu ku kulmayno barnaamijkiisa kale ee aynu uga hadli doono waddamo kale, waa anigoo inkaga tegaya. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.